بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الملا والله في عين قف من هذا من الشوق سكور ولا جيس كم مرة من تاني ولا. بعدين بدل ما تي في أما قلنا جرايد أما قلنا راديو وهي ما تنوع كورة سنة ولا جينا ورما به ولا جينا تي في بتجي. واحد تطلع وضع مساجد أو ما كقاتل عجلة ده ياله. لو إحنا سلا على ما بوسك ورمات كده بيسي على النديد الورمات مركا وحبضنا على دي شيء وربطي يجوز كورني لسانة بشرو وقت جينا للرومية معه أنا رجع هالك فردي وكود الدعوة أنا ملايين يا شيخ محمد عمر ملاس كل دون هاي مصطفى حج إسماعيل هارون بالله هذا غير وده دابا كذا شيء بهاي حاج بو كم قعدنا الشيخ وها أو هارون بالورجلي أو يقدم بيا أو يوسف بالورجلي غير علماء الدين كطحن أيام كذا الشيء غيرها قبل كبرعة كل شيء وقت الاستعمار كان الشيء تاع دولة الصومالية دلالي ضدك أكيد كوستي سكون شيء نوكم من هاي كستوا بهاي الله ونحرسته شنو أفرط السنة ضد بعدين تجي أنا 1963 بقصة نوضي لكن رقم كبر هاي السلامة الله درب بادية وبادية كل شيء يدل الجديدة هاي نختار كأي رجع شوقية وحاسي أنا السلامة الربي الله درب هو يدل بادية شوقته إنه بادية الوصول الملو أنت ولا لا نين قرانا كذا شعدا أنت يدي كلامه بادية الله درب بادية الوصول الملو باديها قبل كها تقدر برعوا يا كل شيء سجى وحكومة برتاي ملعب دكسي هوس دكسي دحى إنستيوت في جرمال ك برعوا كيالي تاساك بحي تخصص كيقول تمال لماذا الله يبقوها جامعة الصومالية ما كبحي كون سجال بولي استيتكي إذا التخصص كيقول تمال الله يلما كبحي تمال كورنطادا تمال كفصل تمال كفصل تمال هو فرسميغان وفرسميغان رين باك كبحي جامعة كديبنا waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee Jarmalku dhisay ku yaala magaalada Quraan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo bar meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed ay xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelada wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa lagu xidhay NSS waa lagu xidhay xerab gurwada waa lagu xidhay xerab military waa lagu xidhay dhabarjabin waa lagu xidhay jeel waa lagu xidhay weligiina maxkamad lama taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkoodna 30 bilood ku jiray على كل حال waxbarashada diineedna waxaan bay ahayd in culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1980 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay يوروب يوم لها سنة حمصلي ولا لنا جيء أنا جو يوروب شوكا دولة الصومالية نعدي إلى سجال شكيبان دجنا يوروب مارس 1999 بعد بوصلنا لمجال هرجيسة إلا هذا هرجيسة دجنا إلا كيسة عقية يوروب تربدي ولا تكاسل نضال دبابرية هرجيسة مكان حياة لكن وبدأ يسعد كيجا كنا نوضع يوروبيا مالها كنا نوضع إن قبل نولد في سوماليا واجه هرانا الإحداثات كنا ديمقراطية هي ديمقراطية قبيل كانوا مفصلة سنة هذا بعرفتها
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegin jiray ee baalada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uu markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemkaa ku qanacsanayn ee hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidaanuu imika isaga furaya isagama furay diyaarada dibadda ka yimaada only xamaroo quray ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto saa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreed wax la yidhahduu soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay haddaan qiso idiin sheego 27-kii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkaan haystay markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn ee waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeya ku daboolan habeen baa labada xaashiyooda aad dhigaysaad kala baxaysaa ila uu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii adigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaaday يعني كتب ما تعالوا بعضاني أدي عديد واحد علماء ودك ودك نيد لكن لما أقولين إنه واحد دقان أما واحد خريان بل أي واحد لقيه بعد نند اللي يرى تهين وكاب وقوة يدولة كبرس إنه كاف وقادر يعني نينون تفسير عام ما خريج شري ولي بو صومالي واقاسي تفسير كبشر رمضان وما يتبدل الآخر شري اختيار الكلام كتب تفسير غامر نحو وحسن الآخر شري على كل حال وحنا قد الله يعني أنت نقول المام يا حويان شانس كايدك وحسيتان مقولين واقع شانس كان عين كتبته باقي راجع كوسيتا كتبته ملك استلوي بنيو أي كتاب أبو بحتاج هلسيو إلكترونيكالي شامل سو دولار غرين سو ودوري طبعا كنا مجلد كتيرة يعني شانس كسيرة تانية قف وحسر سمين كره وحبحتي كره وحباري كره واقع مقولين لكن وحيا لي ضد كوميتد أو ددالية ما لا ضاعتني من كجرته وإن إلهي وحنا نقول دوادان أي كجرته مكانه قضية عن شعرون الكوعلية وحويات والنعمة هاي ستانة كسر سيسن دينتو سيدا إيمان تقف ضد هاي إنه قف كبرته ما يجري ما يقولين waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya sidaad u xasilaysaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambena dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli mana gaadhin macallinkuna deris loo dira buu soo diyaariyaa oo deedhiga waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaanun yurub ka hortegayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyey waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badanee hore ee 90yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray waa Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare la yiraahdo Somali Welfare Organization ayaan ku war labadii toddobaad maalin wax maydin akhriyay oo ka saydaadeen ha niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla al-iimaan arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiyya inaan ka warramo
ندى اللي يرابنا هذا البدن لما صاحي ديرات بان مالين لين تضبط أفريد طبقي عشان مره ليا مركب هاي نقطة مركب هاي لما صاحي ديرات هذا dadka marka cajaladahaas ma soo gaadho markaas la siiyay malaanigan sheekh weyn buu sheekh weyn marna ma noqonin laakiin fursad aanay jirin anigu wax la duubo ma rabin waxaan xasuustaa waxba duubina ku yiri nin dhalinyaro baa intuu kamarad soo qaatay buu wuxuu sheekh ma fadhiyo wax akhriya iska tagay halka damo la fadhiistay ka waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo yeeran iska tago markaas aan iska akhriyay درسكي دمباني مالتي دمبه عجلته سوداني مكايو بدين وما بدنا في اتش باي حاجه في اتش كده ورشد بدين جرتي كليه انت عجلتي قادم بي ورشد جايه ترى دور بولا عجلتود بك دغرو يغو ماشي كو يبينيان ugu yimid عبد الله حسين هي لا يراده iyo ina looran la yiraahdo Ahmed Baharudiyo يقول يبين يانوي والواسيدين ده وحلا يبين السنة وأنا شيخ مساجد كان كذا كذا بحنين والأساس كان مسوسي ده مساجد كان كذا الله يقبل وكان واحد ضد طوبينا أنا كنت أقول لنا إن طوبه تي في نولي متجين راديو نولي متجين إن وده سؤالها بدل ودتك ويدينا ينا ما لا يمسوك جوابك في حد أنا وإنت أسمعك قبل يا السلام عليكم